weligaa qof ha dulmin adduunka intaad ku nooshahay. nabiga calayhi salaam ku dayso. maalin asxaabtiisa u istaagay wuxuu dhahay haddee jirto cid wax iga sheeganayso ama wax afkayga ka soo baxay ama gacanteyda waa idin baryayaa intaan dhiman istaaga iga arguta. saasuu dhahay waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam. qisadan waa idin sheegaya waa qisa waaqici ah waaye. 2 ilaa 3 soo qaadanaya. qisada 10aad waxaan ka dhigayaa nin waayeel ahaa oo socodka dhib ku ahaa oo ul watay oo aad u taag darnaa ضعفي iyo waayelnimo ana wuu tabar darnaa waayelnimona caatu ahaan ula jeedaa wuxuu marayay meel oo roob ku da'ay meeshana jidaa ku yaalay dhinacu u socday maana dhinaca kale waxaa ka soo socday gabar si qurux badan u labisan iyo wiil dhalinyaro ah oo ninkeeda ahaa oo xoog badan wiilkaasoo gabadha gacanta ku haystay waa soo agmaray marka isaga dhinacaasuu u socday wuu turaanturooday si xoog badan oo biyihii ugu dhacay biyihii meesha geeska biyihii marka waxaa ku daatay gabadhii oo dharka quruxda badan wadatay. gabadhii way ooysay. haweenkana quruxda أو من ينشأ في الحلية وهو في القسام غير مبين وآيات قرآن واي قروحده waa dabeecad waay macnaha dabeecada macnaha طبعiga haweenka waxa qurux marka على كل حال quruxda yaa dhaawac ka gaartay way xanaaqday waxay dhahday ma aragtay ninkeeda waxay dhahday fiiri ninkan odayga wax igu sameeyay markaas uu xanaaqay isagana odaygii u tagay wuxuu dhahay xaaskeyga fiirisaa u gashay dharkii caddaa oo quruxda badnaa oo dhan marka waxa wixii dhooqa ahaa oo dhan asaga marka waa dhoqaysan yahay odayga meesha ku dhex jiraa aqliga wuxuu keenaa odayga inuu soo qaado soo joojiyo oo ushiisa u dhiibo oo iyagana ay sabraan dadka oo muuminiinta saxda ah waay laakiin ninkan markii odaygii uu dhahay waa u jeedaa waa turaanturooday raali ahaada wuxuu gacanta ku qaaday marka dharbaaxyo feer u ego ku dhiftay odayga meesha ku kala dhacay isagoo dhaawacna gaaray markaasaa gabadhii markii odaygii saas uu ku sameeyey way faraxday gacantii soo qabsaday markaasaa waxay aragtay odayga afka wax dhaxdhahayo laakiin horey u baxeen gurigay aadeen guriga markay aadeen albaabka markay ka galayeen jaranjada albaabka tan koowaad markuu lugta saaray wuu turaanturooday waa wiilkii wuu soo dhacay meesha ku dhacay qalaf wuu dhintay isla meeshii weer ruxday waxay aragtay naf dhan inuusan lahayn daday u yeertay calaa kulli xaal ambulansiyaa loo yeeray wuu naf baxay wuu dhintaa la yiri maxkamaday tagtay waxay dacweysay ninkii odayga ahaa oo daris la ahaa waxay dhahday odaygaasaa sixray afkiisu wax sixir ah uu ka dhahay marka waxaan rabaa in maxkamad la ii soo saaro ninkeyguu iga dilay calaa kulli xaal dacwada sheeko caanay noqotay xaafadaasi markaasi kadib odaygaa maxkamad la keenay maxkamadda waa la buuxaa qaadiga wuxuu dhahay waxaa lagugu haystaa inaad sixirtay ninkaas oo sixir ah ku dushay wax jirana waay qofka dadka qaarkood inay sixir isticmaalaan dadkana ay dilaan wuxuu dhahay afkaaga maxaa ka soo baxay waxbay aragtay inaad afkaaga dhehaysay maxaa dhahday odaygii wuxuu dhahay anoo turaanturooday oo biyo ka buuxo oo waayeel ah oo aan dhahay raali ahaa waxaasoo wasaq ah uma qasdin oo wuxuu igu dhiftay dharbaaxyo feer u dhiganto oo halkan una i bararsan tahay i dhaawacan tahay markaasaa waxaan dhahay xasbuna allah wa nicma alwakiil waa ducada qof walboo la dulmo culummada qaarkood waxay dhaheen waa ducaa ulfaraj qof walbo oo la dulmo ducada la rabo inuu akhristo xasbuna allah wa nicma alwakiil ilaahu adaa igu filan adaana ku wakiishay intaas markuu dhahay ayaa wuxuu dhahay waxaan dhahay ilaahu waxaad i tustay awooddiisa anna ilaahu waxaan ku weydiistay awooddaada inaad tusto meeshuu ku dhintay ninkii waxaa laga qaadanayaa cidna ha dulmin qof walba oo i dhegaysanayo oo aniga aan ku jiro
nooc kastoo dhib ah uu ku soo gaaro ducadan akhriso ilaah ayaa faraj kuu furaya. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.